asalaamu calaykum waa yuusuf shire isku soo noqod wanaagsan waa maalin kale iyo fursad kaloo cusub maantana waxa aynu gadaal ugu laabanaynaa furfuridii iyo kala fahamkii daad iyo iskoolashibyadiisa kala duwan waxaanan hore idinka ballan qaaday in aan midba mar inta qabano aan si fiican u furfuri doono u faahfaahin doono maantana waxa aynu qeybtiisii koowaad samaynaynaa Helmut Schmidt program oo ah master scholarship oo ay bixiso wadankaasi Germany kaas oo xooga saara public policy iyo good governance marka page rasmiga ah Helmut Schmidt hadda u timaadaan waxaad arkaysaan xooga muhiima oo runtii website-ku si sahlan buu ugu sharaxayaa oo qofka u hagayaa hoos haddaad timaadidoo kale current announcement checklist application form waxaas dhan baa arkaysaa marka maanta waxaanu videoga u kala qaadi doonaa laba qaybood qaybta koowaad waxaynu kaga hadli doonaa oo isku daynaa inaanu fahanno qaybta theory-ga oo waxa lana ka rabo waxaana loo ka baahan yahay dokumentiyada jaamacadaha waxaasoo dhan eligibility-ga requirements waxaasoo dhan baanu maanta falanqayn doonaa videoga qaybtiisa labaadna insha allah beri ama saa dambe aan duubi doono waxaanu kaga hadli doonaa qaybta practical oo wixii aanu diyaarinay dokumentiyada aan diyaarsanay baanu isku xirxiraynaa kadibna waxaynu u diraynaa jaamacaddii aan markaa dooranay marka ila socda qalinkiina buugiina soo qaata fadlan haddaan ugu cusub tahay soo dhawow oo hubi inaad like share iyo subscribe tiraahdid haddaad ka mid tahay asxaabtii horena mar kale is arag wanaagsan waxaynu toos ugu gudagalaynaa haddii ilaahay idmo current announcement inaan furno taas oo xaggan ku keenaysa page-kana imanaysaa Helmut Schmidt program haddaad rabtid inaad fahantid runtii waa inaad fahantid documentigan PDF-kan waa PDF-ka kuu sahlaya inaa A ilaa Z fahantid waxa uu ka kooban yahay waxa laga rabo oo dhan marka dhammaantiis wada akhrin mayno laakiin waxa aynu carabka ku dhufan doonaa qodobo dhowra oo aad iyo aad muhiim ugu ah qof kasta oo doonaya scholarship-kan inuu xareeyo haddii aan koor ka bilowno kale objectiveska baa looga hadlaya qodobka koowaad iyo ujeedka scholarship-kan iyo dadka uu target ka dhiganayo tan aanu ku bilowno marka labaad oo kale yaa xareyn kara well qualified first university degree qof undergraduate haysta oo backgroundkiisu kulliyadahan yahay social and political science law economics public policy and administration xagana waxa ku qoran iyadana above average grades inuu qofku average-ka celceliska ka sareeyo oo xoogaa gradekiisu fiican yahay kadibna qofku inuu doonayo inuu contribution ku sameeyo ama uu gadaal ugu celiyo wax ku tabaruco horumarka wadankiisa iyo gobolkiisaba qof xoogaa practical experience laba la rabaayo internship soo sameeyay ama shaqo caadi soo sameeyay ama social political active aha commitment sameeyay value hadda u timaado ardayga waxa jeebgalis la siinaya 934 health insurance buu leeyahay travel allowance oo ah tigidhka ku tagaysa Germany baa lagu siinayaa research guarantee oo research goorta baaritaan sameynaysid kirada family-gaaga hadduu kula socdo baa laga taageerayaa iyo hal sano luqadda ama ugu yaraan up to 6 months 6 bilood luqadda Jarmalka ayo aad saa magaalada ugu gashay waxyaabo kale oo dheeriyana way jiraan laakiin intaas u muhiimsan application process baan u imaanaa qodobkan waa muhiim application waa inuu ahaado English ama German waxa weeye 2 masters courses baa lagu ogol yahay in aad xareysid waxaan marka sameynaysaa jaamacadda baad website-keeda dhexdeeda ka baaraysaa daad laftirkiisa baad documentiskiisa waxyaaba laga rabo ka akhrisanaysaa application-ka markaa bahalkiisid first iyo second priority baa u sameynaysaa kadibna waad submit garaynaysaa ma garatay oo labadii jaamacadood aad dooratay labadii kuliyadood aad dooratay baad haddii ilaahay ku idmayo submit garaynaysaa marka waxa dhan waa sii furfuri doonaa qof kasta gudihiisa ugu tagaynaa selectionka iyo waxa gadaal baa uga imaan doonaa muhiim hadda nooma aha language skills-ku waa muhiim qof kasta waxa laga rabaa inuu English ka yaqaano waliba hadhow dokumentiya lagu weydiinayaa dokumentiyadiina waa kuwana qodobkan aad buu muhiim u yahay dokumentiga dhan oo file-kan dhan waa muhiim laakiin isaga qodobadiisa si kale xasaasisan kuwana waa selection process-ka oo mustaqbalka weeyo aad waxa laga yaabaa inaadan hadda u eegin kuwana haddaba inaad eegtid bay muhiim tahay checklist baa jira marka xagana goorta ka aragtid runtii waxyaabaha arkaysa wax kamid checklistigan waa kana dokumentiyada lagaga baahan yahay application form-kii baa ku jira waxa ku jira list of countries haddaa fiiriyo sidoo kale list of countries loo ogol yahay waa kuwaana wadamadaas oo dhan weeye Africa haddaa eegto sub-Saharan Africa Soomaaliya waa ka highlight-ka aan saaray waana loo ogol yahay
checklistiga haddaa fiirisidna isagoo si fiican u faahfaahsan oo clear ah xaggan lagu qoray waxa uu horeeya waxa weeye application in English ama German ahaado application form ka dot oo isna documentigan ba isna buuxinaysa hadii ilaahay isagana waa isla eegi doonaa qaybta practice-ka application marka waa inaad jawaabaha buuxisid jaamacadda dowladda second choice first choice kala dowladda letter of motivation baa iyadan loo baahan yahay inaad qortid waxa kugu dhiirigelinaya scholarship kan xareysid CV-ga oo formatkiisa uu mid qaas yahay Europass laga rabo marka CV-gana insha Allah isagana iyo letter motivation kana video-ga dambe si fiican ugu sharaxi doonaa oo aan tusaalayaal idin tusi doonaa CV iyo letter motivation fiican university certificate waa laga rabaa transcript waa laga rabaa oo gradeski iyo waxa ka keentay sharaxaya waxa laga rabaa kala hadii aad khibrad hore leedahay oo soo shaqeysa ama internship soo sameysay kolo ina warqad ama keensatid ID card iyo wuxuun reference baa laga doonaya waxa laga rabo doonaya tixraac qof jaamacad wax ku soo dhigay macalinkaaga hore ama qof aad la soo shaqeysay inuu ku siiyo proof of English language skills ba isagana la iska rabaa in English soo bandhigtid in garanaysid marka haddii halkan u timaadid sidii intiiba hadda meesha ku qoran aan hadda ka soo hadalnay hadda proof of English language skills ka si gudagalna laftirkiisana meel kalena waa ay ku sharaxayaan wax way jaamacadaadu haddii English ahayd jaamacadaad ka soo qaadanaysaa warqad sheegaysa inuu qofkani uu ku bartay English application wuxuu xirmayaa 31 July oo wax way bil baa ka hartay marka waxaan rajaynayaa in waqtigaas niyad isagana lagu hayo marka qodobka 14 hadda u timaadid waxa way more detailed information way jaamacadaha lagu ogol yahay in xariis la'aana waxaanu sheegnay kulliyadaha la xiriira public policy iyo good governance in xarin karis marka kulliyadahana ba meesha ku qoran 7 inay yihiin baan filayaa kolo 3 way kulliyadood marka 7 kulliyadood hadana shaqo ku lahayn background-kaagu ahayn ama aan xiiseynayn runtii scholarship-kan kuma xiiseynayn marka kulliyada kooda kale social protection development and governance public policy peace and conflict studies management in non-profit organization development studies governance and public policy jaacadiina waa kuwa ku hoos qoran Willy Brandt University of Magdeburg magacyadooda University of Passau jaamacadaha waaweyn baa ku jira marka haddii aad rabtid inaad sii ogaatid kulliyadaada xog dheeri ka sii akhrisatid click baasinaysa linkiga uu ku sii furmaya taasna jaamacadii baa ka sii akhrisanaysaa marka halkan xog kooban bay ku siiyeen jaamacadan inuu English ku baxayso 4 semester ay tahay waxa weeye semesterada iyo website-ka jaamacadda hadda doonaysid inaad la xiriirtid wixii dhan baa ku qoran xogtoodan baa xaga jaamacad kasta xog kooban bay ku qoreen marka hadda aan jaamacadan oo kale hadaan fiirino open link jaamacadaas oo kale hadaan fiirino oo Magdeburg Masters and Program Peace and Conflict Studies waa kulliyada aan laftirkayga masterka diyaariyay UK ka diyaariyay marka jaamacadda caadiga ahayd website-kii ku geenaya dad iyo wax shaqo ku leh kuma tusayo marka waxaad sameynaysaa hoos baa soo dhaadhacaysaa waxaad raadinaysaa dad halkan u hooseysa waxaad ku arkaysaa dad international applicant refugee welcome iyo dad scholarship ku arkaysaa dad scholarship hadda ku dhufatid dad scholarship marka ku dhufatid wuxuu ku geenayaa Helmut Schmidt program maadaama ay jaamacadaas ka qayb qaadato scholarship ka Helmut Schmidt marka waxay ku sharaxaysaa objectives-ki waxyaabo la iska rabay qofka xareyn karaya list of countries waxa waan soo aragnay target group la raadinayo iyagana ishaasi marweyn kartaa requirements-ka waxa kan ku qoran academic degree marka waxaad sameynaysaa goorta documentigan soo diristid oo si fiican u soo baratid misna jaamacadda aad dooratay iyo kulliyada aad dooratayna si hoose u sii darsaysaa oo u sii eegaysaa hadda fiiri waxa ku qoran English C1 inuu ka haysan in accordance with the common framework reference language other language skills iyaguna waa advantage marka jaamacaduhu si cad bay waxay u leeyihiin English waan rabnaa hadda IELTS haysatid waxyaabahaas waa okay haddii kalena waa inay jaamacadaadii iyo background-kaaga degree-gaaga uu ahaa English warqad cadaynaysana aad noo keentid marka xogahan requirements ku akhrinaysaa application deadline-kiisa iyaga 15 July baa ugu qoran marka isku bada inaa 31 intaan la gaarin ba hadda fiiri tan oo kale July kala barkeeda way scholarship-kuna wuxuu xirmayaa 31 July marka ina website-ka jaamacadda ka warhayso waxyaabahan oo kale waxyaabaha muhiimka ka dhigaya hadda si gudubtid waxa arkaysaa
daad iyo xogihiisii iyo waxyaabihi aan maanta dhan ka soo hadlaynay checklistigii waka xaggan ku qoran waa checklistiga halkaan noogu yaala oo aanu maanta isla diyaarinay. Checklistigan way checklistiga laga hadlayo marka way isaga xogtii marka lagu soo celiyay CV-gii Europass waa inuu ahaado language-kii experience oo shaqo warqadii recommendationka documentiyada way marka insha Allah waxaad samaynaysaa labada documentiba si fiican u diyaari jaamacadda aad dooratid ama tan ha ahaato ama jaamacadaha kale ha ahaato jaamacad kasta goorta soo fiirisid waa sidaas oo University of Bissau oo kale hadda furno jaamacadana goorta timaadid fiiri iyadana daad meeshii website-ka rasmiga kulliyadii buu ku geenayaa marka daad baa raadinaysaa daad xaggana ku arkay hadda waa kana daad scholarship baa ku dhufanaysaa wakana marka iyagana xogtii halkaasay kugu soo qorayaan scholarshipka programka benefitka find out how to apply wixii oo dhan bay xogtii ku siinayaan stepski jaamacadda ay laftirkeeda u baahanayaan haday waxyaabo dheeri u baahan yihiin oo kale waad akhrinaysaa marka hubi in markasta jaamacadda akhrisid oo systemka ay iyadu rabto inaad ugu soo dirtid akhrisid oo kale marka hadda jaamacadda aan joognay Magdeburg waxaanu sheegnay deadline-kooda kale inuu duwan yahay halkaana waxaa ku qoran please send your complete application merger into one single PDF document to this email waxaad noo soo diraysaa baa dokumentiyadaas oo dhan baad isku keenaysaa hal PDF oo weyn baa ka samaynaysaa kadibna emailkaasa nagu soo diraysaa waa very simple checklistigan qaado soo printer garayso waxaanoo dhan kii aa haysatidba sax saar kii aadan haysanna soo raadi kadibna goorta dokumentiyada ku dhamaystirmaan iyo wixii kaloo requirements oo jaamacadda u baahan tahay passport iyo waxyaabaha kaaga baahdaan oo kale ku attach garee boom emailkaas u dir waa intaas kan waa formka caadiga ah iyo daad marka scholarshipka qaybtan goorta la joogo waxaa muhiim inaad fahantid daad waxba u dirmaysid jaamacaddaada u diraysaa jaamacaddaada dooro jaamacaddaada markaad dooratidna waxaad samaynaysaa dokumentiyada dhan baa u diraysaa oo uu ka mid yahay applicationkan formkan oo buuxa waxaan rajaynayaa inay intaas aan lagu wereerin xagga markaan ka nimaano waa dooratay jaamacaddii checklistiga waa haysataa dokumentiyadaadii waa diyaarsatay waxaad doonaysaa inaad dirtid haddii ay jaamacaddaadu tanoo kale tahay horaa ka diraysaa jaamacadaha kale hadday tahay systemka ay rabaan inaad ugu soo dirtid baa akhrinaysaa kadibna waxa weeye intaas bay ku eg tahay marka waxaan doonayaa inaan labada video waxaan u kala qaaday ma doonayo inuu aan aada ugu dheeraado videoga soo socda marka waxaan isla eegi doonaa sida motivation letter loo qoro CV sida loo qoro iyo sida aad jaamacadaha ugu diraysid formkana si kooban baa u dulmaraynaa buuxintiisa hadda ka hor video baan ka sameeyay videoga linkigiisana hoos baa inay dhigi doonaa marka videogan waxa aan kusoo koobaya waxa weeye labadan documentigan xifdi documentigan A ilaa Z baro waxa uu ku saabsan yahay waxa laga rabo waxa xaq u leedahay checklistiyadaas si diyaarso videoga xigana waxaanu sameynaynaa xareyntii baan bilaabaynaa jaamacadii inaan ku turturnaan bilaabaynaa waxaan rajaynayaa inay intaas so far clear tahay videoga inta dhimanayo motivationka CV-ga iyo structure-ka loo qorayay diridda iyo sida jaamacadaha loogu diraya iyagana si practical ah inay tusi doonaa fadlan hubi inaad share iyo like iyo subscribe tirahdid wixii su'aal aad qabtid ilaawin inaad telegram groupka kusoo biirtid oo aad xaggaas nagu weydiisid ama qaybta simple qaybta commentiga inaad noogu soo qortid telegram groupkana kusoo biir videogana sii share garee walaalaha kale oo asleeda way ka faa'iideysanayaan sii share garee ila kulanka kan xiga waa Yusuf Sharow idin leh isma dhaafin assalaamu calaykum